السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال ميلول بعد شوكتان كسود وهذا كنال كينه هيكاتشي. ما أنتو حن قادنا quote of the day وحكمتي أما مرتدي مالين لها حيد. وعكوسو تشيدنا يوم حدين عبد علي هكا كداونا سنة وحكاتشي بل أن حكمتها ما أنت إنو هيو أنو قد قلن. حكمة كوات وحلا if people are doubting how far you can go so far that you cannot hear them anymore. waxaa la yiri dadka if people are doubting dadku hadii ay ka shakisan yihiin ama ay ka shaki qabaan how far you can go inta aad fogaan kartid meesha aad gaari kartid heerka aad gaari kartid yani meelaha aad gaari kartid nolosha hadii dadku ay ka shaki qabaan go so far baa la yiri fogow tag meel aad u fog go so far baa la yiri waxa tagtaa meel aad u fog that you cannot hear them anymore halkaasoo aadan ka maqli karin dadka tusaan ahaan kale يعني dhalinyarada iska ahayd magaalada iska jooga kadibna asxaab lahayd waxa weeye dadku waxay ka shaqo qabeen awoodda aad leedahay ama madaxweyne ku noqon kadib maalmaha kamid dabadeedna waxaad yani u diyaar garowday inaad madaxweyne noqotid nin han leeyahay ama gabar han leeyahay meel fog u socota kadibna Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku suurtageliyay dadkii asxaabta ahaydeen ee marka hore ka shaqisana ee aan ku qabin inaad madaxweyne maalmaha kamid noqon doonto oo kugu qosli jiray maanta ma maqli doontid kuma arkayaan isma arkasaan xikmadu waxay leedahay yani dadku haday ka shakisan yihiin awoodahaaga iyo waxyaalaha meelaha nolosha gaari kadib tag meel aadan ka maqli karin ayaguna aysan ka maqli karin xikmadda labaad when one door of happiness closes another opens but often we look so long at the closed door that we do not see the one which has been opened for us waxa la when one door marka hal albaab of happiness closes of farxada hal albaab of farxada marka uu naga xirmo another openness ku kale ayaa furma but often like inta badan we look so long waxaan aad ugu dheegagnaa oo waqti badan fiirinaa at the closed door albaabka xirmay that we do not see oo waxaan arki weynaa the one can which has been opened for us ee laynoo furay markii albaabada farxadda kamida uu ka xirmo ama albaabada nolosha kamida uu ka xirmo waxaa jira mid kale oo furmaya marka dadka inta badan waxa ay waqti badan ku bixiyaan oo ay ku dheegagaan ku mashquulaan ka walwalaan ka walaacaan kii ka xirmay marka waxay arki waayaan kii loo furay marka xikmadu waxay leedahay markii albaab ka xirmo ha ku mashquulin kan xirmay waxa tiraahdaa war xagee wax laga furay xagee bay wax yani xalku xagee ka jira xagee waxay ka jiraan waa inaad taqaanaa baraarug aad u lahaata xikmada saddexaad waxay leedahay smart people learn from everything and everyone average people from their experiences stupid people already have all the answers wuxuu ku leeyahay dadka smart people dadka aqliga leh dadka yani xariifiinta maskaxda badan learn from everything waxay ka bartaan wax walba and everyone iyo qof walba cid walba average people dadka meel dhaxadka aan aqliga badnayn maskaxda badnayn waxay wax ka bartaan from their experiences khibradooda waxyaalaha ayaga nolosha si shakhsiyan ugu dhaca ayay ka bartaan oo tusaalaan meesha ay ku guul dareysteen ayay wax ka baran karaan laakiinse ma ogaan karaan dadkan oo ma leh maskax ay ku ogaadaan halka ay ku guul dareysan karaan stupid people laakiinse dadka doqomada baa yiri oo yani daminada already have all the answers waxay waxay u haystaan jawaabaha dhan sababtoo ah wax walba oo cid walba ku dhacday dadka stupid ka way ku dhacday yaa wax laga baranaya smart people wax ka baranayaan dadka stupid ka ama doqomada waxa ku dhaca dadka stupid ka waxay wax ka baranayaan noloshooda wax ku baranayaan noloshooda dhanba waxay ka kooban tahay guul darro sababta ama fakarayaan qof mataqaana manager umalan inuu jiro qof doqona ama damin lagu tilmaami karo qofka aqliga Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu siiyay aqli ku filan oo uu ku noolaan karo laakiin hadaad isticmaal aqligaaga sida ugu wanaagsan aad u isticmaalin asiga ku haligaya marka sadraadeed stupid ama average you smart waxaan waa hal xiraale waa xikmad ka sheekeynaysa dadku qaabkii u nool yihiin ee ma aan xikmad ka sheekeynaysa maskaxda dadka qofku ciduu doona ha ahaado meeshu doona ha joogo waxbuu baran karaa yani maskax ku filan uu leeyahay oo ku noolaan karo xikmadda afraad do what you feel in your heart to be right for you will be criticized anyway waxa la do what you feel in your heart samee waxa aad ka dareentid feel waa ka dareemid in your heart wadnahaaga to be true macna wadnahaaga waxa ka dareentid wadnahaaga bugbug leh halka uu ku sheegay inay saxsan tahay do what you feel in your heart to be right
waxa wadnaha ka dareentay inay saxsan yihiin samee baa lagu yiri for you will be criticized anyway maadaama mar walba lagu eedeyn doono dadka bini aadanka meel walba ay joogaan iyo cidda doonaan bahaadeen waa dad eed u jooga marka eed ama dadka bini aadanka inay ku eedeeyaan iskama ilaalin kara nolosha inta nooshay hadaa rabtid inaad wax qabsatid hadaa rabtid inaad dhimatid waa meel kale hadaa rabtid inaad dhimatid brother oo waxyaalahan aad iska qarisid oo god aad rabtid inaad ka gasho dadka si aysan ku eedeyn hadaa rabtid inaad dhimatid waa adiga arrin ku taal laakiin hadaa rabtid inaad noolaatid oo meel gaartid dadka hadalladooda ha iska fiirin mar walba waa lagu eedeynaya ama wanaag samee ama khalad samee laakiin saxnimada ama muhiimadu waxa weeye war waxa aad sameynaysa ma yihiin wixii xaq ah oo saxda ah taasaa muhiimad sameynaysa sababta mar walba waa lagu eedeynaya xikmadda shanaad wuxuu leeyahay the same boiling water biyaha karkaraya that softness kuwaasoo jilciya the potato baradhada hardness waxay adkeeyaan the egg ukunta hal biyo oo yani tusaale kale maanta dabka waxaa saaray digsi waxaa ku shubtay biyo waad karkarisay waxaad ku riday baradho iyo ukun baradhadii waxay isku bedelaysaa jilic ukuntiina way adkaanaysaa marka saas laga wadaa the same boiling water biyaha karkaraya that softness kuwaasoo jilciya the potato baradhada hardness waxay adkeeyaan the egg ukunta it's what you are made of waa waxa aad ka samaysan tahay not the circumstance ma ahan carqaladaha kugu dhaca nolosha waxyaalaha kugu dhaca muhiim ma ahan sababta mar walba kugu dhici lahaa xadiis waxaa jira ka hadlay in wax walba kugu dhici lahaa nolosha aysan ku seegin wax walba ku seegayna aysan kugu dhacayn marka wax walba kugu dhici lahaa waa wax Ilaahay ku diyaariyay oo mar hore ku siiyay awood Ilaahay subhanahu wa ta'ala la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha nafta Ilaahay kuma kallifo wax awoodeeda ka baxsan marka waxyaalaha kugu dhacay nolosha iyo waxyaalaha kugu dhiciyaba waa wax ku qoran waan awoodna waxaad u leedahay inaad yani ka qalib noqotid oo ka guuleysatid saadaraadid ha fiirin caqabada ku haysatay waxa fiirsaa qaabka ugu gudbi lahayd cidda aad tahay baa yani sheegaysa qaabka ugu gudbi lahayd intaas ku soo gabagabeynay 10ka maanta quote bay ahayd quote-ku inta badan de maskaxna iyo xikmadda uu inii siyaadiyaa sidoo kale vocabulary iyo erayo cusubna waad ka barataan sidoo kale waa isticmaalaysaa noloshaada darbiga ku qoran ka gurigaaga book baad ku qoran ka waxbaad ka faa'iideysaa naftu waxay leedahay wax leedahay spiritku waa ruuxdu waxa shidaal u ah halka jirkeena tusaale kale marka rabtid inaad shaqo qabatid cunta inta raadsid baad يعني cunto fiican cunta oo energy ama tamar fiican ku gelisa si spiritkaaga uu tamar u yeesho oo aad nolosha u sii wadid waxaad u baahan tahay inaad isdhiiri gelisid u sheegtid waxyaalaha xaqiiqda yani naftaada ku saabsan waad u sheegaysaa waa xasuusinaysaa nafta already way og tahay laakiin waa xasuusinaysaa maanta aad macna nin wanaagsan baan ahay waxbaan qabsan karaa meel baan gaari karaa horay baan u socon karaa waan awoodaa kan inaan sameeyo waxyaalahan runtii dadku waxay u qabaan waa dhayalsadaan waxay dhaan dhiirigelinayo waxaas laakiin xaqiiqada dhabta waxay tahay naftaada inay u baahan tahay oo mar walba waxyaalahaas aad naftaada u sheegtid inay dhiiranayso way dhiiranaysaa marka dhiiratana wax balaayay baabi'inaysaa dhul dhan bay baabi'inaysaa waxyaalo badan arrimo badan oo aad markii hore ka walacsanada dhahaysay ma qaban karo waxa baad surka ka jirtaa sadraada isdhiirigeliya Englishna ka barta erayo cusub kala baxa naftiina iyo asxaabta aad jeceshiin la wadaaga muuqaalka intaas ku soo koobaya intaan muuqaalkan muuqaal la mid ah ku kulmi doona waxaan kaga tagayaa nabad iyo nolol kulante